waxaanad warbixin kooban naga siisaa xaaladda iyo halka uu marayo iyo xidhiidhka uu la leeyahay ambaba samaynta uu ku keeni karo dowlad deegaanka khaasatan gobolka city rabitaanka Ethiopia ay rabto dhulka Soomaaliyeed ambo badda Soomaaliyeed ee Saylac maaragtay looga haya salal insha Allah ku soo dhawo. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم marka koowaad wariye Daahir iyo bahda Siba TV waan salaamaya waxaan kaloo salaamaya walaalaha kale ee marti sharafta kula jooga walaal Raxma iyo muxuu ahaa walaalkeen activist aqoonyahan ugu diidan loogu yeero watar cilmi iyo dhammaan daawadayaasha kaleba walaal waan salaamaya inta kadib arrinta ku saabsan mushkiladaha ka taagan gobolka City iyo saameynta ay ku leeyihiin waxaan u malaynayaa doonitaanka Ethiopia doonayso badda galbeedka gobolka Awdal waxaan u malaynayaa inay tahay sidoo hadda Samatar sheegay qayb kale oo kamid ah rabitaankii Ethiopia iyo ay ku taamayso weligeed inay dhulka Soomaaliyeed khaasatan badda Soomaaliyeed ay hesho marka ama ha ahaato galbeedka ha ahaato ama xagga Kismaayo ha ahaato ama xagga kale ee mataqaana Puntland gobolada dhexe ha ahaato mar walba rabitaanka mataqaana guunka ah ee soo jireenka ahaa waa qayb ka tirsan oo aan geed loogu soo gaban waxaad ogtihiin Ethiopia inay qayb ka ahayd mashruucii muxuu ahaa Imaaraadka iyo Ethiopia ay ku kireysanayeen in laga siiyo ama laga kireeyo muxuu ahaa marsada ama dekeeda Berbera hore u dhacay 2000 iyo mataqaana waqtigii dawladii mataqaana Axmed Maxamed Silaay oo madaxweynaha ka ahaa Soomaaliland ay jirtay inay mashruuca ku jireen oo Ethiopia qayb ka ahayd 19% ay ku lahayd waxa inta ilaa beriga ilaa imika dawladda Ethiopia wax allaalay wax deked ah oo ka isticmaashay oo la taaban karo oo buuran mashruuca Berbera ma jiro wayba ka noqdeen wuxuu ahaa intii 19% ay ka qaateen ama ay saamiga ku lahaayeen marka haddii ay runtii ka tahay in mataqaana arrintii ah isdhaafsiga iyo xiriirka ganacsiga in ay wadamadu wadaagaan khaasatan wadamada ay mataqaana go'doonsan inay sida Djibouti ay ugala degaan ay Somaliland ugala degto ama Soomaaliyada kaleba ama Kenya ugala degto way u furneed laakiin taasi ma suurtoobin oo mataqaana way ka baxday mashruuca marka mashruucan kale ee maanta la daahfuray ee ah in la siiyo muxuu ahaa dekadda iyadu ay leedahay iyo saldhig military waxaan u malaynayaa waa wixii qarsoonaa unbaa dibadda u soo baxay marka arrinka jira waxa weeyaan arrinkaas aan ku dhisnayn xiriirka wadamada deriska ay wadaagaan wax wada qabsiga iyo in la kala faa'iideysto oo wadan kale wixii uu dhaamo ama ay fursadaha la kala faa'iideysto laakiin arrinka Ethiopia ay la timid waxa weeyaan waa arrin mataqaana qadiimi ah oo cusbayn oo ah inay ku taanta inay dhulka Soomaaliyeed qabsato marka qof kastoo Soomaali ah wuu xasuustaa waqtigii Axmed Gurey ilaa hadda mataqaana herer laga soo bilaabo iyo wadamadii dadkii dhulka Soomaaliyeed ay lahaayeen maanta meeshii joogaan cid walba way ogtahay marka intii kale soo hadhay jamhuuriyadda ay uga daba yimaadaan haddana waxaan u malaynayaa inay tahay marka arrintan galbeedka ka soo bilaabatay weliba galbeedka fog ka soo bilaabatay mataqaana lafa ciise iyo cadeyta iyo ka soo bilaabatay ilaa halkaas soo socotay weliba soo durkaysa waxaan u malaynayaa waa mashruuca hore ayuunbay la mid tahay Ethiopia waxay sheegteen in la doonayo in saldhig laga siiyo Lughaya degmada Lughaya oo gobolka Awdal hoos timaada oo ah dhul military iyo deked meesha Sheekh baa lagu sheegay ama meel u dhow marka ilaa 90 kilomitir baa u jirta xadka Ethiopia iyo Soomaaliya ay wadaagaan marka macnaheedu waxa weeyaan 90 kilomitir gudaha Soomaaliya ee xadka Somaliland ku jira iyo dhanka kale Ethiopia oo ah gobolkii City qaybihiisii kala duwanaa intuba waxay qayb ka yihiin mashruuca Ethiopia inay isku ballaariso oo ciidamadeeda soo dejiso oo ay tareen sida iyaguba sheegeen maaha waxaan anagu waxaan alifayn waxa iyagu sheegeen markii ay mashruucan sharaxayeen inay tareen inay rabaan inay saaraan marka wadan 120 milyan ah hadduu doonayo inuu Djibouti ka soo guuro oo waxyaabaha uu kala dego Djibouti hadda marsada Djibouti inuu ka soo guuro oo uu samaysto meel kale
infrastructure-ka Djibouti uu ka dhistay mid ka laban ayuu u baahan yahay inuu ka dhisto marka macnaheedu waxa weeyaan dhammaan 90 kiiloomitir ee dhulka xeebaha galbeedka muxuu ahaa Somaliland ah ee Saylac iyo Lughaya ah labadaa degmo hoos yimaada iyo mataqaanaa dhanka kale degmooyinka kale ee ku teedsan xadka ee gobolka City dhammaantood intaas oo dhan inay noqdaan dhul Etoobiyaanku uu xoog u soo dogaan oo mataqaanaa laga farmaroojiyo muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed laga wada farmaroojiyo oo mataqaanaa la isku soo muxuu ahaa ballaariyo marka saameyn xoog ayuu runtii ku leeyahay arrinkaasi haddii ay Ethiopia ay sidoo isagu sheegay muxuu ahaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu yiri mataqaanaa ama nabad ama colaad xoog ayaan ku gaarayaa macni doonisteyda hadduu kaga dhabeeyo oo sidii Tigreega berigii uu galay oo kale iyadoo aan laga fikirin oo aan laga sii mataqaanaa baaran degin inuu duulaan uu ku qaaday haddii uu kaga dhabeeyo runtii waxay noqonaysaa mashaakil xoog leh iyo mataqaanaa burbur aad iyo aad u weyn oo kii berigii la kala jaray xadka soo mataqaanaa berigii xuduudaha la sameynayay ee dadkan halka qowmiyadood ee meel wada degan Soomaalida la kala jarjaray mushkiladii beriga dhacday mid ku xigta oo kasii weyn ayaa laga yaabaa inay dhacdo marka arrinku wax la yaraysan karo runtii ma aha hadda canfar iyo ciise ayaa ishaya marka laga hadlayo galbeedka City ee fog laakiin imika waxa dabada kaga jira mashruuca oo qaybka ah runtii dowladda Ethiopia ee qaybka oo federaalka ayaa qaybka ah oo ku jira umana malaynayo dowladda federaalku inay u takri weyday muxuu ahaa isriixriixa ka dhaca muxuu ahaa qowmiyadaha meel walba ay ka dhacaan oo dhul yar la isku qabsado tuulooyin la isku beero la isku qabsado way dhacdaa laakiin in dhul 600-700 oo kiiloomitir ah dad degan la xasuuqo la barakiciyo 5 sano waliba ma aha 2 iyo 5 sano ay arrinkaasi socdo ma aha arrin sahlan marka mashruucaas waxaan u malaynayaa inay tahay mashruuc ay dowladda Ethiopia istustay in ay muxuu ahaa ay lacagta kaga baxaysa dagaalo badan bay gashay way kacday dhaqaale ahaan runtii waxaan eegayay wasaaradda arrimaha dibadda qolooyinkan cilmi baarista ku sameeya muxuu ahaa geeska Afrika marka xaaladda la darsay Ethiopia ay ku sugan tahay hadda macnihii waxa scale baa lagu fiiriyaa sugnaanshaha dowladda iyo siduu dowladdu u jiraan marka waxa ugu wanaagsan dowladda mataqaanaa scale-ka meesha ugu fiican stable inay tahay dowladdu oo dowlad dhisan oo dhaqaalaheeda iyo mataqaanaa ciidankeeda iyo bulshadeedu ay tahay bulsho stable ah dhinaca kale mataqaanaa waxaa jira scale ah ama ugu xun waxa weeyaan markay dowladdu tahay hash ya fragile burbur ay dee qarqun u saaran tahay marka Ethiopia 2023kii scale-kaas waxaa lagu tilmaamay inay tahay dhinaca cidhifka dambe oo ah inay tahay mataqaanaa dawlad hash ah oo runtii mataqaanaa qaaba qowsayna oo adnaa inay kala daadato oo kala firto qarka u saaran marka dowlad sidaas mataqaanaa xaaladeeda nabadgelyo ay darradu ay halka taagan tahay oo 120 milyan ah runtii waa mushkilad weyn oo la dhayalsan karin marka saameyn toos ah ayay ku leedahay runtii arrinka doonista badda ay ku leedahay gobolka City guud ahaan gaar ahaan iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee mataqaanaa dowlad deegaanka Soomaalidaba iyo Soomaalida kale ee mataqaanaa gudaha Somaliland iyo tii kale jamhuuriyadda marka arrintaas waa arrin weyn oo u baahan dadku inay si fiican runtii u akhriyaan waayo ma aha sidii berigii hore loo akhriyay oo ahaa laba wadan Abiy berigii weyn 2018 la doortay berigu Nobel qaadanayay mashaariicdu soo bandhigay ahayd mataqaanaa regional integration in la sameeyo wax la wada yeesho wax la wada qabsado wax la isdhaafsado wuxuu ahaa mashruuc caafimaad qaba oo xitaa kaadii Somaliland ka berbere laga siiyo Xasan Sheekhan hadda madaxweynaha dowladdii waqtigiisii hore uu saxeexay ayaa qayb ka ahayd imika laakiin wuxuu la soo baxay geeso oo cid walba way aragtaa marka imika heshiiskii caalamiga ahaa iyo waxyaabihii la isku ogaa halkaasaa la iska dhigay caalamkuna dee burbur buu ku jiraa runtii nidaamkii hore ee Maraykanku u dhisay berigii dagaalkii labaad wuu sii burburayaa dee nin walba iyo itaalkiisa iyo xooggiisa ayay ku socotaa marka dadku inay runtii aad u baraarugsanaadaan ayaa wanaagsan haddii 5 sano ka hor arrinta canfarta duulitaankii ay kusoo duushay iyo barakicintii ay ahayd arrin muxuu ahaa u dhacday si degdeg ah oo aan loo sii diyaar garoobin waxaan aaminsanahay inay hadda ay lagama maarmaan tahay dadku inay si fiican ugu baraarugsanaadaan arrinkaa oo muxuu ahaa kulli wacyigelintan barnaamijka sina aad wadaan iyo kuwa kalaba
dil xoojiyo oo dadka wacyigooda kor loo qaado si ay u fahmaan waxa ka dhacaya iyaga iyo jaarkooda marka walaal daayiro haddaan kaga baxo oon codka siiyo walaalaha kale saamayn mataqaanaa tugan oo toos ayay ku leedahay arrinkaasi dadka gobolka city ayay ku leedahay marka mushkiladii hore ee gobolka city ee canfarta dagaalada ka dhacaya ee galbeedka city ka dhacaya ayay tanina mushkilad labaad iyo culays kale ku tahay oo kusoo biiray runtii marka waa culays kale oo dadkii sii duufuulay marka dadku inay laabaan oo laba jibaaraan muxuu ahaa ka hortagii iyo mataqaana difaacidii xaqooda iyo isku duubnidooda iyo baraarugooda ayaa lagama maarmaana kulley intaasaan kaga bixin insha allah jazakumullah khayr aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal ararsi oo waanad ku dheeraatay runtii si fiicanna waad u jexjeexday oo u sharaxday bulshadana maaragtay tala wax ku oola waad gaadhsiisay insha allah